بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. maanta aniga oo Cabdi Xasan Daahir Ciise loo yaqaano iyo walaalkay Xirsi Xaaji Faahiye waxaan nahay wafdi ka yimiday qurbaha. waxaa laga soo aasaasay wafdigaas Dubai. Xirsi Xaaji baa Dubai ka yimiday, wuxuu ka soo aasaasay arrinta in Sandalool aan tigno aasaaskiisu waa Dubai. wuu soo socday Yurub iyo Ameerika dadkii joogay ee qaaraankii qolka reer Galbeed ku jiray arrintiisa ma soconay in arrintii xariirad markii hore la dhameeyay in dib loo yimaado Sandalool oo baahi ka timiday laga jawaabo. marka waftiga Xirsi Xaaji baa ka yimiday Djibouti buu ka yimiday Djibouti ana ka soo raacay. waxaan ka soo kaxaysanay baabuur waxaan nahay wafti matalay dadkii qurba joogta ahaa ee meel kasta ay joogaanba lacagaha soo bixinayay ee wuxoogii anagu halkaa inay ku dhisaan Sandalool walaalahood maxaa madrasad iyo iskool lagu dhiso ku baaqay yaa anagu wafti ka socotaana. baabuurkii baan soo qaadanay, waxaan soo maray Djibouti, alxamdulillahi rabbil caalamiin. habeenkaa soo galay dambal baan nimidnay, waxaan kula kulmay dambal sheekhina Sheekh Ciise Maxamuud baan kula kulanay iyo guddi dadkii deegaanka waa guddi baa laga soo saaray. sheekhi baa guddi nagu soo bixiyay, guddigii waan wada hadalay baahidii inaan ka jawaabno. waxaan u soconay baan waranay, waan isku waranay, guddigii way noo warameen. waxay yidhahdeen iskoolkii aan ku socoteen marka hore waxay ahayd ujeedadu inaan iskoolkii sare 2 galaas ama 3 galaas oo iskoolkii sare lagu biiriyo. waxayna weydiiyeen inay iskoolkii ay hay-adii qaadatay oo la dhisayo oo qandaraaskii la bixiyay. annaga guddigii sheekhi waxaan galay iswaraysi baan galay, waan isweydiinay war maxaa nagu habboon. waxaan ku soo gabagabeynay in la isla waafaqay madrasad diinta quraanka lagu barto oo masiitaasi laga dhiso. waan isku waafaqnay. dadkii degmadan joogay Sandalool waan u nimidnay, warkii baan gaarsiinay annagii guddigii iyo halkan waxaas la nimidnay. waxa la yidhi waan mutawafaq. injineerkii baa naga soo raacay, maxaa yidhahdeen wax dhisayay baa naga soo raacay, dambal naga soo raacay, aqalkii sheekhi baa nagu soo daray. halkii baan nimidnay saaka waxaan joognaa halkan Sandalool baan joognaa macallin injineerkii. dhagixii horreysay waxaan dhignay halkaa afartaa koonaan dhignay dhagixii horreysay wakaa, dhagixii labaad wakaa, labada dhagaxee kalena halkaa bay yaalaan. afartan dhagax baan saa ka dhignay. waan ku dhignay magacii waxaa ku dhigay magacii qurba joogta reer Djibouti reer Geedi baa ku dhignay. waa khaldamay halkaa iga raalaada magacii qurba joogta reer Geedi baa ku dhignay meel kastay joogaanba. marka waa taqabalsiinay. injineerkii waan isla waafaqnay wixii meesha ku baxay kharash oo waxyaabaa ka nidhi kharashkii buu xisaabiyey. lacagtii ilaa $20,000 bay noqotay. 3 galaas oo waaweyn oo 7 iyo 6 mitira iyo maktabkii macallimiintu fadhiisanayay iyo kabineeyadii la dhisayay. intaas wuxuu ku soo qiimeeyey $20,000. waxaan nidhi waa la hayaa lacagta madaxeygii waa la soo shubay. saaka waxay taallaa dambal, waan guddoonsinaynaa. sheekhaana arrintaa lacagta loo guddoonsinaya dadka dhisayeyna iyo isagaa la xidhaynaa. hawshaa waan dhammaynay. dadkii saaka waxaa isku soo baxay dadkii maxaa Sandalool baa isku soo baxay ka faa'iidaysanayay. waraysiyo aan ka qaadnay arrintaasi aan soo gudbin doona haddii Ilaahay ka dhigo. xirsi maxamed hore ku dar بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. والله قالك أود ما ستين waxaan wakiil ka nahay reer Geedigii qurba joogta meel kasta joogaanba salaam baan iga sidnaa. hadday joogaan Australia, hadday joogaan Europe oo dhan, hadday joogaan Latin America oo dhan, Canada, Maraykanka, meeshay doonaan joogaanba reer Geedi oo mida oo xasuustay walaalahood inay wax u qabtaan. arrintaasoo ahayd iskuulkii Sandalool oo sida Xaaji Cabdi Ciise idin sheegay xalay markii sheekhaan u tagnay haw sheekhu yidhi waryaa Sandalool waxaa u baahan tahay madrasad quraan halkaaba qaawan buu yidhi. miskiidkii weynaana waa kaa Sandalool halkaaba inoo qaawanay halka hala dhisa buu yidhi. sheekhu xalay wuu ku duceeyey. xalay halkaabaa fadhinay Sandalool baa shalay fadhinay oo 4 dambal baan fadhinay. dambal baan u jeedaa halkaa raalli ahaada
dambal baa shala fadhinay sheekh iyo guddidiisa halkaa baan ku ducaynay waxaan islaaf garanay in 3 qol oo waaweyn oo qolkiiba uu yahay 6 mid 7 ninka ila socdaaye cabdisaar ciisoodna waa nin injineera isaguna qadarsada qaata injineerkii kale waxay isla egeen dhowr cadde sidaa darteed xalay waxaa la isku waafaqay in 3 maqsin iyo maktabkoogii la dhiso iyo kabaneegoogii sheekh uu ku duceeyey lacagtii iyo mas-uuliyaddeediina uu qaatay wuxuu dhisto ninka la yidhaahdo ciise cabbaas oo cabdi halkaa lacagtaa la dhiga oo xawaalad leh oo baaycumashara oo dukaana leh oo qadarasi qaata ninkaasaan ammaanada qurba joogta ku aamanaynaa ku soo shuba buuri sidaaba sheekhu ku duceeyey reesta dolool baa saaka u imanay iyaguna si fiican bay noo soo dhoweeyeen ilaahay ha barakeeye way na soo dhoweeyeen reestoo dalool salaanna waa inii soo dirayaan qurba joogow meel kastoo joogtiinba iyagana hadalka u dhiibi doonaa waan idinka baxnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada maxay hadaan dadkii reer Sandalool ka faa'iideysanayay محمد أحمد سلطان أنا هو إمام المساجد الصدرول يا معلق عبد المكان قبل هذا حلو كان عنده أقول لك فطبعا سلام بان صدر إنك تمام بدون تدتين له هذا توجه تين إنه يمدين فرص سلام بنظرنا ما هذا هي نقادو وحاد نوصلتنا ونقول دون ورد ما هي نقادو وحاول يرو كمان بقى يا والله قبل بدون تنو يمدين هرنا وينو يمدين ما سوي نو يمدين وهرنا وتكبر يا صور نوي مساعد ما ترى كوكو نوي يمدين ماشي بايضا نروح نقول لك هذا أنا سوق بني هذا إذا ورث سلام تكون مكان يكون نجوا ورث ما ده نقادو إلى حقي سنة واحد يرجعنا خير إنه مسؤول من كمان تيمبا وعلينا بايضا نروح نضاق بعيد سكول كا يوم مدرسة الدين تاعي سكول كي هذه حق الدولة إنه ولا حتى ماشي وجود أنا ودين ما هذا الدين لا إنه حقا ما ماشي الدين تاعو قارسنا وجوده هذه الدين تلهرو وحلو الشيء مريا مدرسة ما صار نقطة إنه بلغ قادين ويحي نوكين وعليهم ويقولوني وأنا كأقبل لي الشيخ يقول مركز مساجد كذا زي نكينا نقعد قفتي وهاي نقارن إنه يقول مني ما أنت نايسان قفل بكاي مسنة هل كان على النقطة زي مدرسة وين قدوني وأنا كأقبل وراي بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقاعي وعثمان خيردون وكمدا بلشوين تاني سندرول تالا وحوي وبلشة سندرول كمدا إن شاء الله تعالى وحن بقولكي وبقول كفر أحسن هاي لذلك ولا رأيو أن السوق يرسيو وحرت السلامينا لما أنتود بقرب جوجت ولا رأيو meel kasta ay joogaanba eena soo xasuustay boqolkiiba boqol salaam baan iyaan u gudbinaynaa waxaan u dhiibaynaa kuwan imika maqlaya kuwa kalena inay gaarsiiyaan insha Allah ta'ala ilaahay ka jisaaysiiyaan leeyahay baahida iyadana run ahaantii waxa weeye maadaama maanta halka bulsho weyn baan ku joognaa halkani rag iyo dumar bale oo reergeedu u dhan haddii aanu joognana waxaan cadaynaynaa maanta oo intayada isku waafaqsanahay ilaa kuwa kale degmada ay isla soo hadleen qurba joogto waxaan isku waafaqsanahay in baahidii noogu dareyd la taabtay waayo waa loo baahan yahay madrasada waa halka waa meeshii noogu dareyd waan helaynaa cilmi maadiga waan helaynaa oo dawladii baa noo qabatay alxamdulilah ilaahay mahadi haddii ay noo qabatay halkaa waa banaanayd ilaa kow إلى هالك وصريسا واي مسحنيدبا ولدا هدي إلهي نوح السوسية نوع قبتين ما تفرحت بقول إلهي نوا صدقة جارية هنيجا جسايسية إن ظهرين وسي ودان وحكلوا نيجو درسنا أنك نيجو قدرنيتها إن المعلميتي عاد موجود صوت درتان عاد موجود طورها دقيقة ولا ليال وسلامتي لا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أنا قوها في قديرية حرسي
oo salaamaya qorba joogta iyo walaalaha iyaga nooga yimiday ee han isku jisigana alxamdulillah rabbil caalamiin intii reegeedii ahayd ee tagtay istaariya hadday maanta noo imatay waa mahad gaara iyo farxad gaara baan maanta muujinayna waxa noogu daray waxa weeye anagu u baaqayna kolkii hore qorba joogta walaalaha iyaga dugsiga 12aadka ee ubadka iyagu hoofayaan ee markii hay sideed ka baxaan hay naga saaqidayaan kolkay waayaan waalid gacanta qabta taabay haytiyahan maxay ahaydaan ugu baaqaynay walaalaha iyaga qorba joogta ee jinsiyadayada ee wadanka iyaga ka tagay ee isku dhiigana hayati maxay ahaydaan dawladda noogu ballan qaaday mahad ilaahay imig waa la bixiyay ta kale ee labaad ee imika u baahnayna waxay ahayd diintii oo ah madarasada walaalahay hadday noo soo garteen iyo Sheekh Ciise Weli way ku mahadsan yihiin Sheekh Ciise Weli iyo walaalaha iyaga qorba joogta ka yimidayba way ku mahadsan yihiin boqolkiiba 10 ayay ku mahadsan yihiin baan leeyahay annaguna waa ka gudoonnay wayna ku mahadsan yihiin boqolkiiba 10 ilaahayna hanala qabto بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد magacaygu waa xurro faarax xaaji waxaan salaamaynaa walaalaha iyaga dalka dibadda nooga yimiday meel kastoo joogaana soo xasuustay xirsi xaaji faahiye maxamed ciise inuu qaldan yahay magaca mooyaane walaal waxa weeye waan salaamaynaa kuwa kale inila joogana waad nooga geynaysiin mahadnaq aad iyo aad u fara badan boqolkiiba kun goor baan salaamaynaa kulanka diinta rukunka diinta ee noogu daraa maanta haddaad noo aasteen allah inala garab garo inaga inta nagu soo hadaysay ee aabbahayaga halkan ee dhabarka ahaa walaal waan salaamaynaa kuwa halkan jooga waxaan nagu salaamaynaa bulshada duqayda culimaawiyaasiinka culimaawidiinka uqaasha odayaasha duqayda marwooyinka dhalinyarada dhammaan waan nagu wada salaamaynaa intaas waxa saweeji maanta aad iyo aad baad mahadnaq anagu farxad baan hadli kari lahaa oo hadalkiiba aniga horta iiga halaabay quraanaan anigu farxad wallahi waan qiroonayaa waan ooy hadalku iiga halaabay wuxuu iiga halaabayna waa farxad darteed agoomaha halka jooga ee biraabaha oo alla dhigay oo alla ku reebay ee halka ku dhintay haddaad soo xasuusateen oo dibadda aad naga soo xasuusateen maadaama halka ku carrownay wixii aad noo sideen ba mahadnaq فرحت درتيد بهذا الكيبا يذكر على الله وانا كل ما هدنا قيد وانا نيجو ما هدنا قيدنا والسلام عليكم ورحمة الله بس خلاص ودماتي حفلة دي إن شاء الله تعالى وهذا عايزين وحكلا أنت كبر ونسع عايزين دونا ودتكنا واقع ونسلامية ونجيب دوني ونسلامني سلام بالني صدريا سلام بيني صدريان ولا ليه نوصلتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النيلية هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.